إلهي إذن كنا ما فريسة دونه gacmahana isma saari doono annagoo aan deegaamada ka saarin gulufka aan hadda ku jirno inaan uga sifeeyno Hiiraan iyo Soomaaliyaba muddo aan isleeyahay hal week waa ku dhowdahay ama waa dhan tahay waxaanu howlgalo uga jirnay magaalada Beledweyne iyo magaalada Boole Bardeynta ka dhaxaysa deegaamadii awal hore looga saaray nimanka cayayaanka ee dhiigga bini aadamka caadaystay ayay mar labaad waa wax aqsunaasa oo waxyaabaha la yaabka oo aan maanta arkay waxa kamid ah dhulkii baaruhu ku yiileen iyo deegaamadii roobku galay dadkii shacabka ah inay daaqaan ama deegaan xitaa uma ogola dhulkaasaan howle ka wadnay beerxaano Tirijeento Burdaar Nuur Fanax ceel la hele iyo deegaamo kale maanta Allah subhanahu wa ta'ala ma hada ka gaadhay suuragal noo noqotay inaan ka saarno magaalada Nuur Fanax ee istiraatiijiga ah ee aan hadda ku suganahay ciidamada howlgalayana waxay ka kooban yihiin ciidamada xoogga dalka ee sida raaxa u booda iyo kuwa deegaanka sida caarada u socda caarada way garanayaan umana birdhigi karaan inay iska caabiyaan caado uma lahayn mana iska caabi karaan waa niman shaqadoodu tahay inay wax gaadaan inay masaakiinta yani xoolaha ka qaataan inay yani waxa lagu leeyahay qofka bisha Ramadaan marka uu soomo asaga ayaa xaq u leh fitrada cidda uu siinayo inuu doorto waxyaabaa ugu yaabka badneed maanta arkay waxay ahayd inay dadkii leeyihiin keena fitrada adinku ilaahay idinkii hadday ku noqotona inta ay deegaan Hiiraan ka mida ku jiraan ma dhigi doono gulufka iyo inaan ka saarno dhulka ma dhigi doono mana dhaafi doono ama ay Soomaaliyaba ku jiraan aan iraahdo intii Soomaaliyaba ku jiraan ma ka naso doono mana ka aamusi doono gacmahana kama laaban doono laakiin fakalti ahaan aniga fakaltiga aan ku magacaabanahay waa Hiiraan waxa aad ii quseeyaa waa Hiiraan hadda dhulka ay ku hareen waa webiga Shabeelle dhanka galbeedka ka ah halkaasi ku hareen deegaamo badan oo dhulka ka bannaan oo aysan joogin oo dadka deegaanku kula dagaalameen waqti hore wiilna ay dhulka ka ilaaliyaan waa jiraan oo isla galbeedka ah deegaamay ku jiraan waa jiraan ilaahi idinkina ma fariiso doono gacmahana isma saari doono annagoo aan deegaamada ka saarin gulufka aan hadda ku jirno inaan uga sifeeyno Hiiraan iyo Soomaaliyaba ayaan u diyaarsanahay dadka Soomaaliyeed haddii dhulkiina lagu soo duulay midabka doontaan yeesha ciidamadu waxay ciidamada qalabka sida da ilaalinta wadanka waajibaba ka saaran oo waa kuwii u diyaarsanayeen oo loo aasaasay ayagoo midba qayb leeyahay waa u diyaarsan yihiin laakiin dadka shacabka ee Soomaaliyeed ee hubaysan iyo kuwa aan hubaysnaynba waxaa la rabaa inay qaybta ugu weyn ka qaataan ayaguna in ay la dagaalamaan cadowga sababtoo dhulkoodii lagu soo duulino
waxaan la ogolayn oo keli ah in ayadoo la leeyahay loogu magac daraya cadow baan la dagaalamaynaa system warlord ah in loo isticmaalo qabaa'ilka ayaa qalada system warlord in loo isticmaalaa qalada laakiin cadowga inay la dagaalamaan oo kii qori haystaa xabad ku rido oo aan kii qori aan haysano soo sheego oo yiraahdo halkaas ku jira xagganay socdaan oo meel walba telefoon baa ka baxee leesu kaashado wax aad u wanaagsan waaye in guulo badan laga gaarana way dhacaysaa aniga hadda hadal badan inaan ilaahdo uma istaagin inaan u mahad celiyo dhammaan dadka Soomaaliyeed inaan u mahad celiyo ciidamada xoogga dalka ee howlgalka maanta nugula jiray iyo ciidamada deegaanka intaba iyo kuwa nabad sugidda midabkay doonaan ha yeesheen fakalti kasta yihiinba ciidamada qalabka sida Soomaaliya waa u mahad celinaynaa kuwa deegaanka oo runtii aan dhihi karo waa dad muwaadiniina u diyaarsan inay cadowga iska dulqaadaan walow ay ku jiraan qaar aad moodo sidii u fakarayaan si yaab leh inay tahay ay ku jiraan haddana bini aadamku inuu boqolkiiba boqol seef garoobo israaco ma dhacdaba maba dhacdo sidaa darteed waxaan leenahay waa mahadsantihiin midabkaad doontaan yeesha dadka Soomaaliyeed Allah subhanahu wa ta'ala aan adoonku u nahana waxaan uga mahad celinaa inuu noo suuro geliyay in cadowga aan ka adkaano oo goob kasta oo nagu hornimaadaba u cararo taana Allah subhanahu wa ta'ala ma hadda iskale dadka Soomaaliyeed waxaan mar labaad carabkay ku adkaynaya war ha loo istaago dhagar qabayaasha in Soomaaliya laga saaro Soomaaliyey maxay ahayd haystii wadadii banaaneed laga weecan maayee Soomaali weynay wacad baa inoo yaal Soomaaliya war wacad baa inoo yaal wacadka inoo yaala muxuu yahay waa in shabaab laga waayo wadanka shabaab in dalka laga waayo wacadkaas inoo yaal Soomaaliya intaasaan kula dardaarmayaa anigana waxaa iga go'an haddii alla idmo inta shabaab dhul Soomaaliyeed ku jiro inta ay taalkaygu la egyahay hiilaana inaan ka saarno Soomaaliya inaan ka saarno qalbiyan iyo ficliyanba haddii Ilaahay idmo